kulanti wacan daawadayaalida lahaantiinba halkani waa Daawus Media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha xilligan waxyaabahan idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona maxaa ku soo kordhay xasaradaha ka jira kilinka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia jabhadda TPLF oo la ogaaday inay ka barbar dagaalamayso al-shabaab shabaabka iyo TPLF oo wada socda miyaa duulaan ku qaaday dowladda deegaanka Soomaalida xog cusub oo soo baxday ayaanu daawadayaal muuqaalkan ku eegi doonaa waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa General Americana oo xogo cusub oo aan horey loo ogeyn ka soo saaray dagaalka al-shabaab ay ku qaadeen kilinka shanaad sidoo kale waxaan daawadayaal idiin haynaa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani oo ku dhawaaqay howlgal kalena al-shabaab isagoona dadka reer Puntland ugu baaqay inay qoriga qaataan una diyaar garoobaan difaaca deegaanadooda xilli duulaan shabaabku ay ku wadaan kilinka shanaad sidoo kale waxaan daawadayaal eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la faray in uu xiro xuduudu la wadaago Soomaali galbeed cabsi laga qabo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab inay ka gudbaan xuduudda awgeed iyana xogtan ayaan daawadayaal ku faahfaahin doonaa guud ahaan wararka Itoobiya ka jira ayaan muuqaalkan daawadayaal mar kale idinkugu soo gudbin doonaa ee soo dhawaada aan ku bilaabay kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkii labaad waxa ay duulaan ku tahay dalkaasi Itoobiya dagaal qaraar ayaa wali ka soconaya deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida inkastoo maanta wax dagaal ah aan la soo warin haddana dhaqdhaqaaq ayaa wali ka jira xuduudda ay u dhaxaysa gobolka Bakool iyo gobolka Afdheer ee Soomaaliya iyo Itoobiya xogo cusub oo hadda soo baxayana qaarkood waxay tilmaamayaan suuragalnimada shabaabku inay helayaan gacmo kale oo caawinaya dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in duulaanka lagu soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin kooxda TPLF oo iyadu la safanaysa al-shabaab General sare oo ka tirsan saraakiisha dalkaas Itoobiya ayaana sidaas sheegay taliye ku xigeenka nabad sugidda dalka Itoobiya ahna madaxa howlgelinta militariga oo ka warbixinaya dagaalkii al-shabaab ay soo qaadeen maalmihiina socday ayaa sheegay in ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi xoogag dibadda ah iyo waliba kooxda jabhadda TPLF generaalkan waxa uu sheegay in al-shabaab xisaab qaldan isku dhufsadeen oo ay islahaayeen dhankaas ciidan xoogan ma joogo haddii aad gudaha gashaan gurmad ayaad heli kartaan waxa uu generaalkan sidoo kale ka hadlay weerarka al-shabaab uu yiri 20 ama 30 gaari inta aad Itoobiya ku soo weerarto kuma jabin kartid dhammaan kooxdii gudaha soo gashay waa la ciribtiray ciidamada gaarka ee Soomaalidu waxay muujiyeen geesinimo cajiib ah runtii guul weyn oo cashir u noqonaysa ayaana gaaray oo loo dhigay argagixisada generaalkan ayaa xuseen argagixisada sida hadalka uu yiri ay hogaamiyaal laga dilay waxaana uu sheegay inay jiraan isku dayo kale oo ay wadaan balse waxa uu tilmaamay in halkooda oo Soomaaliya lagu xakameyn doono oo markan gudaha Soomaaliya looga daba imaan doono waxa uu sidoo kale qiray in ay hayaan xogan muujinaya in TPLF iyo al-shabaab ay ka midaysan yihiin dagaalka ka soconaya kilinka shanaad TPLF ayaa dagaal waxay la gashay dowladda Abiy Ahmed dagaalkaas waxa uu ka dhacay waqooyiga dalkaas Itoobiya hadda dowladda Itoobiya waxay aaminsan tahay dagaalkan ka soo cusboonaaday bariga Itoobiya oo ah Soomaali galbeed in ay ku lug leeyihiin dagaalamayaal ka tirsan jabhadda TPLF inkastoo xogahan aysan jirin ciidan rasmi ah oo xaqiijin karta jiritaankooda haddana dowladda Itoobiya ayaa aaminsan shabaab iyo TPLF ba inay heshiisna ay ku yihiin dagaalka ka soconaya bariga dalkaas Itoobiya wadahadallo u dhaxeeyay dowladda Itoobiya iyo jabhadda TPLF ayaa dhowr jeer fashilo ay ku yimaadeen haddase waxay u muuqataa in Itoobiya iska raadhicinayso in TPLF ay markan ka barbar dagaalamayso kooxda al-shabaab ee duulaanka qaaday dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sheegtay in la xakameeyay qorshe ballaaran oo al-shabaab ay ku doonayeen inay ku qaadaan dhul badan oo dalkaas Itoobiya wasaaradda oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa waxa ay sheegtay inay u muuqato in Itoobiya ay si xooggan uga hortagtay isla markaana ay ka guuleysatay dagaalka kooxdii soo qaaday taliyaha Africom ayaa hore uga digay in al-shabaab ay qorsheynayeen weeraro fara badan oo ay ka geystaan dowladda deegaanka Soomaalida sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo iyadu baahisay warbixinteedii toddobaadlaha ah toddobaadkan gudihiisa ayay xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidanka liyu booliska ku dagaalameen tuulada Laas Qurun oo u dhow degmada Feerfeer markii dambe waxaa dagaalka qayb ka noqday militariga Itoobiya labada dhinacna waxay sheegteen in mid waliba khasaare u gaarsiiyay kan kale
iyadoo sidoo kale dagaalkii ka dhacay gobolka Afdheer isna waxyeello xoogan uu geystay kaas oo la sheegay inaysan qayb ka qaadan ciidanka lugta Itoobiya marka laga yimaado in duqeyn ay ku caawinayeen ciidanka gaarka ah ee xoogga dowlad deegaanka Soomaalida oo iyagu dagaal dhulka ah la galayay dagaalamayaasha shabaab ee weerarka ku qaaday dhulka Soomaali galbeed gaar ahaan xuduudda iyadoona dagaalkii ugu xooganaa ee labada toddobaad ku dhow dhacay uu ahaa kii ka dhacay jimcihii degmada Aato ee gobolka Bakool halkaas oo si toos ah isugu farasaareen labada dhinaca kalena waxaa jira cabsi xoogan oo ay muujinayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira gudaha Soomaaliya kuwaas oo iyagu hadda fariimo diraya madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay dagaalada ka soconaya xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ee u dhaxeeya al-shabaab iyo liyu booliska Dani waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad khatar ah marka loo eego dhanka ammaanka isagoo si adag ula dardaarmay dadka reer Puntland dalku waxa uu ku socdaa xaalad mudan in si dhow loola socdo oo dhanka ammaanka dadka reer Puntland meel kasta oo ay joogaan waa inay feejignaan amni muujiyaan ayuu yiri Siciid Dani sidoo kale waxa uu yiri waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya iyo Itoobiya waa wax cusub oo midnimo looga badbaadi karo waxaan ugu baaqayaa dadka reer Puntland in dowladnimadoodu ay difaacdaan oo cadowga ay iska dhiciyaan muujiyaan feejignaan amni lana shaqeeyaan hay'adaha ammaanka madaxweynaha oo sii hadlayay ayaa dadka reer Puntland u sheegay in dowladnimadu aysan ku koobneen mas'uulka hogaaminaya balse ay tahay wax waaraya oo la wada leeyahay Soomaaliya mar ayay dowladii ka burburtay 1991kii hadda waxaa socda dhismo dowladeed oo runtii meel fiican maraya waxaan alla ka baraya ayuu yiri in dib dambe aysan nooga burburin dowladeena Siciid Dani ayaa si gaar ah ula dardaarmay ama ula hadlay waxgaradka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay inaysan isku xirin dantooda iyo tan guud iyo danta guudba waxaa la rabaa dowladnimada inay noqoto wax dadku wada leeyahay qofka dan gaar ah wato waa inuu meel kale ka raadsado dantiisa gaarka marka bulsho shaqeyntu waa in ay noqoto aas-aaska nidaamka siyaasiga ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in ay ciidamo badan dhigayaan xuduudda ay la wadaagaan kilinka shanaada si looga hortago kooxda al-shabaab inay dhaqdhaqaaqooda ballaariyaan isla markaana ay ka gudbaan xuduudda ay la wadaagaan Soomaali galbeed shalay waxaa dhacay kulan u dhaxeeya Puntland iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida saraakiil ka kala socotay kaas oo ka dhacay degmada Galdogob ujeedkiisuna waxa uu ahaa in la xakameeyo qulqulka dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ee ka gudbaysa xuduudda Puntland ee la wadaagto dowlad deegaanka Soomaalida dhinaca kale madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna loogu baaqaya inuu xiro xuduud la wadaago kilinka shanaad inta xaaladdu ay ka degayso iyadoo laga cabsi qabo in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira ay ka gudbaan xuduudda Somaliland isla markaana ay duulaan ku qaadaan gobolada Somaliland ay xuduudda kala leedahay kilinka shanaad madaxweynaha Somaliland ayaa hadda ka baaraan degaya sida macquulka ah ee lagu xakameyn karo in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay ka gudbaan xuduudaha maamulkiisa al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay ka gudbaya xuduudaha ay la wadaagaan maamulada qaar ee Soomaaliya kilinka shanaad ilaa ay hadda meelaha ay ka baxeen dagaalamayaasha dagaalka ku qaaday dalkaas Itoobiya waa Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed xitaa Jubbaland deegaanadeeda dagaalamayaal ka yimid ayaa Koonfur Galbeed ka galay dagaalka sidoo kale waxaa jira cabsi ay muujinayaan Puntland Galmudug iyo Somaliland oo saddexduba iyaguna xuduud la leh maamulka kilinka shanaad kuwaas oo iyaguna ka cabsi qaba in dhankooda dagaalamayaal ay ka baxaan isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalka soconaya Muuse Biixi ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay in gabi ahaanba uu xiro xuduud la wadaago kilinka shanaad ilaa inta ay xaaladda dalka Itoobiya ka degayso